nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida wadamada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maxay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo General Saadaq John xog iyo macluumaad dheeri oo arrimahaas aan idinkaga hayno ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale madaxweyne Farmaajo amray gudoomiyaha bangiga dhexe inaan la bixin karin lacagtii laga qabtay Imaaraadka Carabta xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu ka ballan qaaday Imaaraadka in loo celinayo lacagtooda kadib deeq timid Imaaraadka uu ra'iisul wasaaraha uu markaasi gacanta ku dhigay shirka golaha wada tashiga xalay ayuu dib u furmay isagoo saqda xalay soo gabagabo welina wax natiijo laga gaarin qodobadii la isku hayay ee arrimaha amniga sidoo kale ciidamada koofiya casteen madaxtooyadu waxay xirteen wadada Maka al-Mukarrama xiisada ayaa sii korodhay kadib markii xalay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsan qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaynu eegaynaa markan waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo faahfaahsan aynu ku horeynay waxa xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ku kulmay madaxweyne Farmaajo iyo General Saadaq John oo xiisad iyo waliba khilaaf labada mas'uul ka dhaxaysay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo General Saadaq Cumar Xasan John ayaa xalay ku kulmay xarunta madaxtooyada Soomaaliya 8 bilood kadib markii uu madaxweynaha ka xayuubiyay generaalka dhammaan darajooyinka ciidan sargaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa inoo sheegay in kulanka uu yimid kadib codsi ka yimid General Saadaq John oo bariyahan dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho qof kale oo Saadaq John ku dhow ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay kulanka labada mas'uul sargaalka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka madaxweyne Farmaajo iyo General Saadaq John uu daba socdo kulan shalay dhexmaray taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kulankaas oo ka dhacay gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dhexmara Fahad Yaasiin iyo General Saadaq John wixii ka dambeeyay markii Saadaq xilka laga qaaday bishii Abriil ee sanadkii hore Saadaq ayaa xilligan ku sheegay muuqaal lagu baahiyay warbaahinta gudaha inuu hakiyay kulan ay yeelan lahaayeen golaha wada tashiga qaran aan ilaahay golaha shacabka oo looga dooday arrimaha doorashooyinka dalka isagoo faray xildhibaanada inay dib ugu noqdaan deegaan doorashooyinka Saadaq John ayaa markaasi ahaa taliyaha ciidamada booliiska iyadoo shaqadii laga eriyay waxyar kadib hadalkiisa maalmo kadibna madaxweyne Farmaajo ayaa ka xayuubiyay dhammaan darajooyinka ciidan ee generaalka uu lahaa kulanka dhexmaray Saadaq John Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay cafis waxaana kulanka dhinacyada dhexmaray fududeeyay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo laga soo doortay Jubbaland kana mid ah ragga ugu dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Saadaq Cumar oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ah musharax u taagan kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa haddaba waa kuma Saadaq John oo magaciisa oo saddexan uu yahay Saadaq Cumar Xasan ayaa ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee dalka Itoobiya Saadaq ayaa la sheegay inuu horaantii 1993 u soo wareegay magaalada Muqdisho isagoo markii dambana 2002 uga sii gudbay dalka Kenya kadibna dalka Koonfur Afrika halkaas oo uu ka sii aaday London waxaana uu dalka dib ugu soo noqday sanadkii 2014 markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin taliyaha Niise ee Galmudug sidoo kalena sanadkii 2017 oo magacaabay taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir taliyihii hore ee hay'adda Niise Cabdilaahi Maxamed علي سنبلوشو oo ay soo wada shaqeeyeen muddo dheerna Saadaq John ayaa ku qeexay inuu yahay nin howlkara oo shaqadiisa sida ugu haboon uga soo baxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa dhowr jeer warbaahinta ka weeraray Saadaq John waxaana xusid mudan in muddo ka hor uu dowladda Turkiga ku dhaliilay laba wajiilanimo kadib markii ay bila sharaf guddoonsiisay Saadaq John oo uu ku eedeeyay gacan ku dhiigla dilay 5 kamid ah ilaaladiisa xilligaas oo la weeraray hoygiisa Saadaq ayaa lagu bedelay taliyihii ciidanka Haramcad Farxan Qaroole oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir haddaba heshiiskan cusub ee Saadaq John iyo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu ku kacay $1 milyan waxaana Saadaq sidoo kale u qorsheysan in laga dhigo taliyaha booliiska Soomaaliyeed si markaasi loogu weeraro mucaaradka Soomaaliya oo iminka markaasi urursanaya dhinaca kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa soo saaray go'aan ka dhan ah oo dib celintii lacagta dowladda Imaaraadka
ee shalay gelinkii dambe uu ra'iisul wasaaraha ballan qaaday in xukuumaddiisa ay dib ugu celinayso. Farmaajo oo fariintan ku socodsiiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa sheegay in lacagtaasi si aan sharci ahayn dalka lagu soo geliyay 8 bishii Abriil ee sanadkii 2018. Madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyaha bangiga dhexe ka dalbaday inuusan ogolaanin go'aanka Rooble sanduuqa dowladda looga bixiyo lacagtaasi, isagoo go'aanka lacagta lagu celinayo ku tilmaamay mid hal nin qaatay. Sidoo kale wareegtada Farmaajo waxaa lagu xusay in lacagtaasi ay waxyeeleyn karto amniga qaranka iyo dhaqaalaha dalka haddii ay ka baxdo qasnada dowladda. Waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas'uul gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyadoo aan la marsiin hanaan waafaqsan shuruucda dalka, ayaa lagu yiri qoraalka uu Farmaajo soo saaray. Wareegtadan ayaa waxa ay markaasi cirka sii gelinaysaa khilaafka labada mas'uul u dhaxeeya ee markaasi iminka waxyeeleyn karta doorashada dalka, isla markaana soo dedejin karta dagaal sokeeyo oo ka qarxa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Ugu dambeyntiina xalay waxaa magaalada Muqdisho dib uga bilowday shirka golaha wada tashiga qaran kadib maalmo nasiino oo madaxdu ay kala maqnaayeen. Xafiiska ra'iisul wasaaraha oo war kooban ka soo saaray ajandaha shirka xalay ayaa shaaciyay in laga hadlayo dhamaystirka hufnaanta iyo amniga doorashooyinka dalka. Shirkan oo Muqdisho ka socda ku dhawaad hal toddobaad ayaan weli wax xal laga gaarin muranka ka soo laabtay doorashooyinka kuraasta yar ilaa hadda laga soo doortay xubnaha golaha shacabka, dhamaystirka iyo hufnaanta doorashada. Sidoo kale waxaa miiska saaran oo la isku mari la'yahay dalab uu wato ra'iisul wasaare Rooble oo ah in amniga guud ee dalka isaga lagu wareejiyo, kaas oo hadda uu mas'uuliyadeeda sheegto madaxweyne Farmaajo. Madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa la sheegay in toos uga soo horjeesteen in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Rooble lagana wareejiyo madaxweyne Farmaajo, halka madaxda Jubbaland, Puntland iyo ra'iisul wasaare Rooble ay ka midaysan yihiin fikradaha in Farmaajo laga wareejiyo mas'uuliyiinta amniga qaranka. Ugu dambeyntiina ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee loo yaqaan Koofiya Casta ee ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa xalay saqdi dhexe waxa ay xireen wadada Maka al-Mukarrama oo ku dheersan wadada madaxtooyada Soomaaliya. Ciidankan oo aad u fara badan ayaa gebi ahaanba xiray wadadaasi, waxaana loo kasa lagu arkaya taangi dagaal iyo askari taagan, iyadoo aan la ogeyn sababta loo xiray wadadaasi, balse waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay wareegto ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya lagu amray in bangiga dhexe aan laga bixin karin lacag la sheegay in Imaaraadka ay leedahay, oo shalay uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu dib ugu celinayo Imaaraadka Carabta. Arrintan ayaa markaasi khilaafka labada mas'uul ayaa qalqalgelisay amniga dalka iyo weliba gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyadoo xaaladda Muqdisho ay kacsan tahay isla markaana ciidamo fara badan la soo dhigay madaxtooyada kuwaas oo xiray jidadka waaweyn ee magaalada. Guud ahaan daawadayaal warka aad kala socoteen channelka waa nageynta.